الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وسورة البقرة آيات لبيه كنت لبيه لحدا بين كبلاب إن شاء الله. آيات داوه الرئيساء كوبي لحدا هدين ودي بقولنا قلنا اهبطوا مصرا هي مصر باكل الدول marka hadii la yiraahdo misran oo sida munawwar uu yahay sida aynu arkayno mid tanwiinsan macnaheedu waa magaalo kamida magaalooyinka dega erayguna 5 meelood buu ku soo araray quraanka taqriiban marka imika uu waa maadaama labada xaraka leeyahay waa magaalooyinka kamida laakiin hadii fadxa kaliya uu leeyahay waa wadanka Masar udkhulu misra in sha Allah aaminiin marka farqigaas jiro haboon inaad la socoto arinta kala jirtaa waxa weeye وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربك waxa la yiraahdaa markii soo garaaca la yiraahdaa laakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halkan waa dhismo marka eraygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiin aanay uga tagaynin ay u laasimsan yahuuda waxay ka dhigan taambuug lagu dul dhisay oo kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaana taambuuga faqriga iyo miskiinnimadu iyo dulligu ku dul dhisan yahay waxa kaloo jira ficilka mudaaric ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen nebiyadana way dileen wax soo socda hadda ma aha dana ilaahay ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baynu ku arkaynaa aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimood buu noqonayaa xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nabi dilka ahayd sawirkeedii ilaahayna soo hordhigayo oo bashico liita iyo iyada oo lagu sheegayo waxan inaanay wali deynba gaalnimadiina way wadaan نبي دلكينا ويوضع لأن الفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد أو إحيى عصبورانا يكل بأي فعل كتسنيا مركا ولي سيدي با يكفرون آياته قالوا بيانوق آياتها نابا ودن بيكوي كقالوا بين ولينا ويقتلون النبيين نبيين ولي سيدي با ودي ليانو دين نبي محمد با ودن بيو وي سنيين أو وي سحران أو قعنت أولادتك اختيال بي وسميين انتو ربا waxyaabaha wax lagu dilay lagu isticmaalay ugu foosho xun ayay kula kaceen bigayr alhaq ba taala waxa isweydiin leh waxa bay nagu fileed way yaqtuluuna nabiyiin nabi la dilo adaa iska garhayno xaq daraya nabi bay nooran karna garba lagu dilay waa gardar laakiin bigayr alhaq waxay ku sheegaysaa iyaga aaminsanayeen xaq darati iyaga laftigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaq darrada wax la isku waafaqsan yahay mulaaxadaad jira way qaala allah ta'ala innal ladina aamanu dadki ilaahay rumeeyay rabbi walladina haadu yakwi yahuudoobay wan nasara yakid kuwa diinta nabi ciise ku abtirsada kristanka la yiraahdo wasaabiina yakuwan iyagu diin bahaysanin من آمن بالله عد إلهي الرميسة واليوم الآخر مالنت قيامها الرميسة مالنك الضنبئ وعمل صالحا عملا ونكسنا السميسة فلهم أجرهم أبال كودي كليهين عند ربهم إله ودأكتيس ولا خوف عليهم عبسيد شوذا ما يهانين ولا هم يحزنون من أمرقونيا آيات النبي اللحظة إلهي وحي نقو عدي ضد كان إلهي وأبوري inaanu kala yaxanayn
dadkuna waa dadkiisii dalkuna waa dadkiisii diintuna waa diintiisii intaasunbuu doonayaa ilahay inay ishelaan markaa dadkan isaga ka tala dadkan isaga addoomaha ee uu abuuray hadday xagga diinta ku sinmaan qolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani israa'iil ama qabiilada reer bani israa'iil qur-aanku ka warramayo si gaara looma eryanayo carabna si gaara looma soo dhawaysanayo laakiin addoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan dee kolba sidee iimaan iyo camal saalix cidda intan laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb waa iimaan iyo camalkii oo saalixa bal isku wada darsamoo dadkii mu'miniinta hadday iimaankiisii wataan yuhuudigiina hadduu yuhuudinimadii ka baxo kii nasaarada hadduu nasraannimadii ka baxo islaamo kii saabi ahaa saabiyiintu ama yuhuudday ka faliidhmeen ama kiristanka ama qaaran kitaabba ku aftirsan weye intan oo dhami hadday ku soo ururaan iimaan iyo islaamnimo dee awliyada ilaahay bay ka mid yihin awliyada ilaahayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo adduunyada ah iyo cabsi aakhira midina ma hayso alaa ina awliyaء allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka ilaahayna rumeeye ilaahayna ka cabsada awliyadu marka dhaqankoodu waa caynkaa wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu derajadaa gaadhsiiyey dadkana waxa uguba dhib badane raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tegey waa labadaa midu ama wixii tegaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanaad kalsooni ka haysaninoo cabsigi kaa haysa ilaa dadka shahaadanaya mu'miniinta ay jannada galaan cabsidu maba baadaba saasunbay u soconaysa marka halkaa rabbi wuxuu inoogu caddeeyey dadku ilaahay hortiisa way u siman yihiin qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caami markaa isku wada daro hadday mu'miniin muslimiin ay yihiin ilaahay rumeeyo hoggaansan aayaddu taasay faa'iidaynaysa man aamana billaahi walyowmi alaakhir arkaantii iimaanka o dhan baa soo wada gelaya alyahuud inaa hudnaa ilayka bay ka timi dhahaan culimadu ama kii ay ku abtirsan jireen ay ka farcameen baa yahuuda la odhan jiray inaa hudnaa ilayka ee nebi muuse yidhi hadda kuu soo noqono ilaah kuu toobadkeenay beriga hore ammaan ba ahayd oo toobadkeen ba ahayd laakiin markan dambe yahuudinimadu ceebtaasay noqotay annasaara in la yidhaahdo min aladiina qaaluu inaa nasaara iyagaa magacan la baxayoo waxay isku tilmaami jireen magaca tiibu qur-aankuna u qaaday laakiin in la yidhaahdo masiixiyiin oo loo nisbeeyo ciisa almasiix ciise bnu maryama in loo nisbeeyo magacawgaa sax maha bay leeyihin culimadu liannahum laysuu masiixiyiin dee maaha oo ciise dee cidda ku abtirsanaysa ee si saxa u rumaysani waxa weeye dadka mu'miniinta ah ee aaminsan inuu addoonkii ilaahay yahay ee aabbala-aan ilaahay maryan uu hibeeyey laakiin abtirsiimadooda ah inay masiixiyiin yihiin ay ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magaca qur-aanku u bixiyaa loo daynaya annasaara waid wakti xus nebi maxamedow akhadnaa miihaaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil warafacnaa fowqahum dushoodana waxaanu dhignay oonu kor yeelnay aduura buurti duuru siina khuduu baanu nidhi qaata buu ilahay yidhi maa aataynaakum kitaabkan aanu idin siinay iyo diintan biquwatin dadaal ku qaada wadkuruu maa fiihi cilmiga ku suganna xusa ama ku camal fala lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa la idinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu اllaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiinna uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba-ah ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan aabbayaashooda ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaaddii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaana inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda hayaan
waxaasee yeeleena idinku ha yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsado ku ceebeeyey idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee lahayd oo kitaabku wuxuu koobsanayo o dhan bay ahayd ballanta waxaa ku jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur-aanka loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay uu ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaadoo dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu u imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa ee qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay quwa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacay oo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayo shaydaanka ayaa dadaal laga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahantay waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa quwa waaciduu lahum ma staطactum min quwa awooddana diyaarsada baa ilaawi idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda hagaya ee dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkoodaasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maanta ayna haysata adigu hubka ma samaysan kartid baa lay muslin oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa lay wa antum cusal idinkoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynaya markaasaa la tafsiiraya oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaado ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaanaه wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi dalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkii bay ka sii jeedsadeen oo kitaabkii bay ka sii jeedsadeen oo dadkii bay qaybo u qaybiyeen waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa raciyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay idhahdeen intan inama anfacdo intana inoo sahlan ablaynta iyo kala saarsaaridaana gaaladu aad bay u yaqaanaano dee waxayna leeyihiin diintiina a haysataan qaybahaasi waa idiin caadina ku dhaqantaan oo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha militariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha haynagu taataabanina annaguba taayadii waanu iska daynay idinkuna tiinna iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytum min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxigiisii u diideen ha u diidina
falowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allah timid fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu ilahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaanoo dee idiin qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa ee fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iina dulaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli fajacalnaahaa waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan cibro wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israa'iil dee ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeya baa le jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno oo kalaa loo bandhigay way diideen kuwa kale nasaarada la yidhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la yidhaahdo bahalkaa kalluunka la yidhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalinta iyada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintanun baa lay daaya 6 cishana waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummadda qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale noocnooca buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii unbaaba wuxuu noqday shuraca uu soo baxayaa halkanse ku imanaya ilaa xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way ka sii imtixaan badantay imtixaankeedu wuu ka sii badan yahay saasee u eegana waxay dhahan war bahalkii dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yaallaa dee wadaadadii baa loo tego le balqiil eega muxuun dee baadhbaadha ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa la dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhah maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabak ha u dhigaan ama godad ha u qodaan maalintii waa la qabtay bahalkii bannaanka u soo baxee lagu imtixaanayay axad iyo maalmihii ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasuu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqadda looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo aad ka akhriyaysa inay 3 qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diidday iyo qaar yidhi naga daaya meeshay doonayaan ha ka dhacaana ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaanaan anagu cunin qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arrintaasina waxay noqotay sidaa ilaahay u galay ummadii wakhtigaa joogay waxay u ahayd 10 ummadaha ka dambeeyana 10 bay u ahayd dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iidaystaanoo xaaraan kuma dhiradaan wa mawcidatan lilmuttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxaa samaysay iyo dadkii sameeyey fajacalnaaha ay alqarya ama fajacalnaaha ficlada iyada ficlada ah waaqicada ah dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilaahay uhi nakaalan ay cibraheed marka limaa oo soo noqotayna limaa bayna yadayha wamaa khalfaha maadu mararka qaarkood bay man noqotaa man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waktigaa joogiya kuwa kadib imanayeyba
daris bay u ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayada had iyo jeer markay meel wax ka dhacaan dee dadka waxay wax ku qaataan bay u noqotaa ma sidana ilaahay u galay talow maxay sameeyeen dee inagana inaga ilaaliya waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaana wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka halkaa waxaa dadka ilaahay uga digaya subxaana wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda qiradatan khaasiin rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam daayeeradan iminka jooga ma kuwii reer banu israa'iila la nasakhayba maya buu qolo markuu ilaahay nasakho 3 cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaa wey marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday wuu dulaysan yahay marka diin la'aanta iyo macsiyada dulligaasaa looga dhacaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة آيات لبيه كنت لبيه لحدا بين كبلاب إن شاء الله آيات دعوه الرئيساء كوبي لحدا هدين ودي بقول نقولنا اهبطوا مصرا هي مصر باكل الدول marka hadii la yiraahdo misran oo sida munawwar uu yahay sida aynu arkayno mid tanwiinsan macnaheedu waa magaalo kamida magaalooyinka dega erayguna 5 meelood buu ku soo araray quraanka taqriiban marka imika uu waa maadaama labada xaraka leeyahay waa magaalooyinka kamida laakiin haddii fadxa kaliya uu leeyahay waa wadanka Masar udkhulu Misra in shaa Allah aaminiin marka farqigaas jiro haboon inaad la socoto arinta kala jirta waxa weeye وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربك waxa la yiraahdaa markii soo garaaca la yiraahdaa laakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halkan waa dhismo marka eraygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiin aan ay uga tagaynin ay u laasimsan yahuuda waxay ka dhigan taambuug lagu dul dhisay oo kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaan taambuuga faqriga iyo miskiinimadu iyo dulligu ku dul dhisan yahay waxa kaloo jira ficilka mudaarica ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen nebiyadana way dileen wax soo socda hadda ma aha dana ilaahay ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baynu ku arkaynaa aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimood buu noqonayaa xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nabi dilka ahayd sawirkeedii ilaahayna soo hordhigayo oo bashico liita iyo iyada oo lagu sheegayo waxan inaanay wali deynba gaalnimadiina way wadaan نبي دلكينا ويوضع لأن الفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد أو إحيى عصبورانا يكل بأي فعل كتسنيا مركا ولي سيدي با يكفرون آياته قالوا بيانوق آياتها أنا بودن بيكوي كقالوا بين ولينا ويقتلون النبيين نبي دينا ولي سيدي با ودي ليانو دين نبي محمد با ودن بيو وي سنيين أو وي سحران أو قعنت أولادتك اختيال بي وسميين انتو ربا waxyaabaha wax lagu dilay lagu isticmaalay ugu foosho xun ayay kula kaceen bigayr alhaq ba taala waxa isweydiin leh de waxa bay nagu fileed way yaqtuluuna nabiyiin nabi la dilo de adaa iska garhay inuu xaq daraya nabi bay nooran karna garba lagu dilay waa gardar laakiin bigayr alhaq waxay ku sheegaysaa iyaga aaminsanaa in xaq darati iyaga laftigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaq darrada wax la isku waafaqsan yahay mulaaxadaad jira way qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey buu rabbi yidhi
والذين هادوا يكوي يهودوبي والنصارى يكيد كوا دين النبي عيسى كوا بترسل كريستيان كلا يراه والصابئين يكوان يجو دين بهايسنين من آمن بالله عد إله الرميسة واليوم الآخر مالنت قيامها الرميسة مالنك الضنبئ وعمل صالحا عمل وناكسن السميسة فلهم أجرهم أبال كودي كليهين عند ربهم إله ذاكتيس ولا خوف عليهم عبسي دشودا ما يهانين ولا هم يحزنون من امرغونيا آيات النبي لحدن إلهي وحي نوغو عدي ضد كان إلهي وأبوري إنانو كلاحنين ضد كنوا ضد كيسي ضد كنوا ضد كيسي دين تنوا دين تيسي انت سبودون يا إلهي نيسهلا marka dadkan isaga ka tala dadkan isaga adoomaha ay oo abuuray haday xagga diinta ku sinmaan qolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani Israa'iil ama qabiilada reer bani Israa'iil quraanku ka waramayo si gaar ah looma eriyanayo arabna si gaar ah looma soo dhaweysanayo laakiin adoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan de kolba sida iimaan iyo amal saalix cidal intan laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb وإيمان يعمل كيو صالح بل اسكو ودا درسما ودد كي مؤمنين تهدى إيمان كي سي وطان يهودي جينا هدو يهودي نمدي كبح كي نصارى هدو نصرى نمدي كبحو إسلامه كي سابين تو أما يهودي كفل إدمان أما كريستان كا أما قارن كتابك وآفتر سنوي انت نورا هدى كو صوروران إيمانية إسلامي دي أولياء إلهي بكمدي أولياء إلهينا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مروجو الدنيا ده يعبسي آخرة مدينة ما هيس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأدتك إلهينا الرمي إلهينا كعب صدا أولياء marka dhaqankoodu waa caynka wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu darajada gaarsiiyay dadkana waxa ugu badhib badan raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tagay labada mid ama wixii tagaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanad kalsooni ka haysaninoo cabsi ka haysa ilaa dadka shahaadanaya muuminiinta ay jannada galaan cabsidu ma baadaba saas u baa u soconaysa marka halka rabbi wuxuu inoogu cadeeyay dadku ilaahay hortiisa way u simeeyeen qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caam marka isku wada daro haday muuminiin muslimiin ay yihiin ilaahay rumeeyo hoggaansan ayadu taasay faa'iideynaysa man aamana billahi wal yawm al aakhir arkaanti iimaanka oo dhan baa soo wada galay al yahuud inna hudna ilayka bay ka timaadaan culimadu ama kii ay ku abtirsan jireen ay ka farcameen baa yahuuda la oran jiray inna hudna ilayka النبي موسى إلى هذا كوسا نقولنا إلى كوس توبت كان بريء هراء أمام بهذا توبت كان بهذا لكن مركز دم يهود إنما ضعيف تأسين نقط النصارى إن لا يداده من الذين قالوا إننا نصارى يجا مجا عن لب حياة وحيسكت المام تشيلان مجا عتيب القرآن كنا وقاضي لكن إن لا يداده مسيحيين oo loo nisbeeyo Ciisa al-Masiix Ciisa ibn Maryam in loo nisbeeyo magacaaga sax ma aha ilaan culimadu laanna laysu masiixiyiin de maaha oo Ciisa daacida ku abtirsanaysa ee si sax ah u rumaysanin waxa weey dadka muuminiinta ah aaminsan inuu adoonkii Ilaahay yahay ee aabalaan Ilaahay Maryam u hibeeyay laakiin abtirsiimadooda aynay masiixiyiin ay Ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magaca quraanku uu bixiyaa loo deynaya an-nasaara wa idh waqt husn nabi maxamed akhadna miithaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil wa rafa'na fawqahum dushoodana waxaanu dhignay oo nu kor yeelnay aduura buurti durusiina khuduu baanu nidhi qaatabu ilahay ما آتيناكم كتاب كان ودسينا دينتا بقوة دلال كقاضة واذكروا ما فيه علمك كسغن حصى أما كو عمل فلا
lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa la idinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu اllaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiina uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba-ah ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan aabbayaashooda ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaaddii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaana inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda ay hayaan waxaasee yeeleena idinku ha yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsado ku ceebeeyey idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee lahayd oo kitaabku wuxuu koobsanayo o dhan bay ahayd ballanta waxaa ku jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur-aanka loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay uu ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaadoo dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa ee qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay quwa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacayoo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayo shaydaanka ayaa dadaal laga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahantay waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa quwa waaciduu lahu ma staطactum min quwa awooddana diyaarsada baa ilaahay idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda hagaya ee dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkoodaasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maantayna haysta adigu hubka ma samaysan kartid baa lay muslin oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa layidhi wa antum cusal idinkoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynaya markaasaa la tafsiiraya oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaado ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi dalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkii bay ka sii jeedsadeen oo kitaabkii bay ka sii jeedsadeen oo dadkiibay qaybo u qaybiyeen waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa raciyad
kitaabkiina way kala dheegeen waxay yidhahdeen intan inama anfacdo intana inoo sahlan ablaynta iyo kala saarsaaridaana gaaladu aad bay u yaqaanaano dee waxayna leeyihiin diintiina haysataan qaybahaasi waa idiin caadina ku dhaqantaan oo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha militariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha inagu taataabanina annaguba taayadii waanu iska daynay idinkuna tiina iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytu min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxigiisii u diideen ha u diidina falowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allah timid fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu lahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaanoo dee idiin qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa ee fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iina dullaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli fajacalnaahaa waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan cibro wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israa'iil dee ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeya baa le jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno oo kalea loo bandhigay way diideen kuwa kale nasaarada la yidhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la ydhaahdo bahalkaa kalluunka la idhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalinta iyada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintanun baa lay daaya 6 cishana waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummadda qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale nooc buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii unbaaba wuxuu noqday shuraca ku soo baxaya halkanse ku imanaya ila xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way ka sii imtixaan badantay imtixaankeedu uu ka sii badan yahay saasee u eegana waxay dhahan bahalkii dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yaallaa dee wadaadadii baa loo tegoo le balqiil eega xuun dee baadhbaadha ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa le dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhahay maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabag ha u dhigaan ama godad ha u qadaan maalintii waa la qabtay bahalkii bannaanka u soo baxee lagu imtixaanayay axad iyo maalmihii ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasuu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqadda looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo aad ka akhriyaysa inay 3 qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diidday iyo qaar yidhi naga daaya meeshay doonayaan ha ka dhacaana ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaan aan anagu cunin qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arrintaasina waxay noqotay
sidaa ilaahay u galay ummadii waqtigaa joogay waxay u ahayd 10 ummadaha ka dambeeyana 10 bay u ahayd dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iideystaan oo xaraan kuma dhiradaan oo mawcidatan lil muttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxa samaysay iyo dadkii sameeyay fajacalnaaha ay alqarya ama fajacalnaaha ficlada waaqicada dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilaahay u nakaalan ay cibra marka lima oo soo noqotayna lima bayna yadayha wama khalfaha maadu mararka qaar kood bay man noqotaa man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waqtigaa joogay kuwa ka dibimanayayba daris bay ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayaan wadiya jeer markay meel wax ka dhacaan dadka waxay wax ku qaataan bay u noqotaa ma sidana ilaahay u galay talo maxay sameeyeen deynagana inaga ilaaliya waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaanahu wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka waxaa dadka ilaahay uga digaya subxaanahu wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam daayiradan imika jooga ma kuwii reer banu israa'iil la nasakhayba ma yabno qola markuu ilaahay nasakho 3 cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaawi marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday uu dulaysan yahay marka diin la'aanta iyo macsiyada duligaasa looga dhacaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawm الدين وآية 70 من سورة البقرة سورة البقرة آية التضباط قصة البقرة وين الشيء إن شاء الله قصة سجود مستفادات كذا أما النتائج والفوائد والعبر وحياة لقى قادنا إيه ما تنقى إنه معناه نهرت إن شاء الله قالوا مركا هدنا وحيد هذا مرصد حاط ادعوا لنا ربك ربي قال النوبري يبين لنا هالنوع ما هي وحيت إن البقرة جنسي الله يراها تشابه علينا ويسكك كايا إيقاضي وإنا إن شاء الله أنه هدو إلى هاي دونه لمهتدون وانكو هنوني دونا روانو فلي قال مركا النبي موسى وحور إنه ربي يقول وحور لا إنها بقرة وناف لؤة لا ذلول mid layliyan maaha ama carbisan tuthiiru al-ardh oo dhulka qoda wala tasqi al-harf mid beerta waraabisana maaha la musallamatu wa mid nabad gasho wax ceeba maleh ceeb muuqata maleh la shiyata fiha calaamadna maleh looda barbarta ku badana barna maleh qaaluu waxay yiraahdeen alana jiit bil haqq imika al-haqq lati sidii sugnaydeen doonaynay fadhabuha bu lahay way gowraceen wama kaadu may dhawaanin yafcaluuna inay sameeyaan waid waqti xusna bi maxamed oo qataltum nafsan waid wadkuru bay markaa noqonaysa mar hadii khitaab ka dambeeyo wadkuru waxa xustaan id qataltum nafsan markii abal nafti shay qof idin kamida fadaaratum fiha wa isku riixriixdeen هذا دلي اسكو ريح حسا كدعا والله مخرج الهينا وحو سو ساري وابو سو ساري ما كنتم تكتمون بخي قرينيسين الهي با بنانك سو دغ فقلنا وحن ندبو الهي اضربوه ببعضها قف كان ميتك waxa ku dhufataa neefka barki meel la wacayimay soo gooyo ku dhufta كذلك سداسا يحيي الله إلهي وصول نولين يا الموتى ضدك دينتي ويريكم آياتي آياته سنود تصنع يا وين أودي سموتنا يا لعلكم تعقلون وحاولوا ديننا وحكرتان وحيل هاي كدونا يا أفلسان عقلي يا لتاني علم nimankii su'aashii adana way soo celiyeen oo waxay yiraahdeen hadda waxaanu doonaynaa dhinac kale ayaanu ka weydiinaynaa xagga isticmaalkeeda ويمك دادي iyo midabkeedii hadii la soo dhaafay neefkan isaga bal sida bani aadamku isticmaalo xooli way yar kala duwan yihiin taasaan ka doona in albaqara marka mufradka iyo jamca taada lagu kala saaraa erayga taada mar waxa loo isticmaalaa labkiiyo dhadiga lagu kala saaraa
marna mufradka iyo jamca mararka qaarkoodna mubaalaqa iyo xeel dheeraan bay u timaada sida calaamatun oo kale marka halkani waa farqan bayna almufradi waljamci ismi jinsiga marka ina albaqara bayna kolkii hore baqaratun baynu hayne ina albaqara waa shajaratun iyo shajarun oo kale wixii la odhan jiray loobaaba isaga kaaya egaadayo dee loodii baabaanu kala garan lahaa dal insha allahuna waanu samayn insha allahuda haddaanay odhan lahayna way kasii adkaan lahay imika intaa waa la waafajiyey lamuhtaduun wuu sheego wuxuu ihi sacani haddii aan idiin sii sharxo ma aha tilmaantiisu laa daluulun tuhiiru اlard walaa tasqi اlxarf mid beerta qoda mid biyaha waraabisa oo markaa ama lasoo dhaansado ama beertaba biyaha ku shushubta ma aha musallamadu ceeb bay ka nabad gashay inta inoo muuqanaysa wax qarsoon mooyaane dusheedu ceeb male calaamadna male shiyadu waa calaamada erayada markaynu luqada isdul taagno waxay meeshii hore odhan jireen habeen jiilaal waa 100 sac mahmaha soomaalida ka mid ahay habeenka jiilaalku waa midabo caawa waa kulayl habeen dambe waa qabow siigo kaad waxaas isugu dhex jira macnaha ma noqonayo meel loogu hagaago waxay uga jeedaan 100 sac oo isku midaba lama arko kani waa dhiin kanina waa madow kani waa cadaan kani barbar buu leeyahay marka waa xigmadda aayadana laga fahmayo loodu way midabo badanto barbarteedii iyo calaamadaheeda badane tani waaba saafi barbartii badnayda looda lagu yaqaanay malaha waa mid iska saafi ah marka midab saafiya inta yeelataa ma badna ee barbarta ku badan hadda xaqi la timi bayna dal aflagaadada marka hore baadil buu waday anshuxumadooda iyo af adaygoodun bay ka mid heer banu israa'iil inaad u fiirsanaysa mooyaane mar walbana waxay soo celinayaan kolkay la hadlayaan nabiga hadal adaygooday ka mid tahay udcu lanaa rabbaka rabbigaaga bay leeyihin iyaga miyaanu rabbi u ahayn haddaad tidhaahda imika rabbigaaga iyo rabbigeenna maxaa u farqiya dee rabbigeenna rabbi buu inoo wada yahay wey laakiin rabbaka markaad tidhaahda dee waad iska riixday rabbinimadiisii waad riixday waa nooc suul adaba wey maca allaahi wa maca rusul marka halkanna waxay yidhahdeen imikaad xaqii keentay way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluun marka haddii ay gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna oo daba taagani maxay tahay waa meel ay aada u sharxaan culamada luqada ee tafsiirka haddaad aada u akhrido mararka qaarkoodna laga yaabo qofka inay kuba adkaato fahamkeedu kaadada xagga nafyiga iyo ihbaatka iyo marka nafyigala iyo markay muhbat tahay iyo macnayaal badan bay bixisaa laakiin si aynu usoo dhaweyno kuwa u dhow qaadano way gowraceen umasay dhowaanin inay sameeyaan miyaanay iska hor imanayn marka daahirka eegto neefkii way gowraceen baaba lagu leeyahay haddana waxa lagu leeyahay umay dhowaanin inay sameeyaan waxa laga fahmayaa ma ay samaynin dee marka waa inuu lifaaq la socdaa tafsiirkeeda marka waxay leeyihiin wamaa kaad way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay u sameeyaan sidii loo faray oo dee sida loo faray maxay ahayd dee amarka inay sidiisii u qaataan u baheedo edab daradan iyo su-aalahan ka daayaan ama wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay falaan gowraceeda intaanay gowracin ka hor marka qabla daalika baa la raacinaya wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhowaanin inay falaan qabla an yadbaxuuha intii aanay gowracin ka hor way sigteenba nimanku way sigteenoo intii aanay gowracin ka hor may u dhowaanin inay gowracaan sidaas weeye tanna waa qisada bilowgeediiyo naf baa disheena markaasay isku riixriixdeen adaa dilay iyo adigaa dilay mu'aamaradahoodai ka mid ahayd iyo mushkiladahooda iyo isqabsigooda iyo khilaafka dhexdooda ilaahayna wixii la qariyay wuu soo saarayy waxaa qariseen ilaahay baa soo saarayy sooba saariyoon sicii markii la yidhi gowraca ee ay gowraceen waxa la yidhi fadribuuhu ma idribuuhu bibacdiha neefka barh soo jara ku dhufta markaa barhkaasi halkeebuu ahaa qaar baa idhaa dabaduu ahaa qolo kale carabku ahaa maxaa inaga khuseeya hadday meeshu muhiim tahay in la sheego naska cayimilaa ilaahay kama tageen subxaana wa tacaala laakiin arinta muhiimka ah ee weyne laga faa'iidaysanaya waxa weeye kadalika yuxyi illaahu lmowta wayuriikum aayaati lacalakum tacqiluun aayadihiisii buu ilaahay idin tusinaya iyo siduu dadka dhintay usoo nooleeyo caqligoo laga shaqaysiiyo oo cilmiga lagu fahmo oo lagu cibro qaato ilaahay laga tala qaataaba wey natiijada la doonaya
marka qisada cibar baa ku jira iyo casharo aynu ka faa'iideysanayno oo qaarkood fiqi yihiin iyadoo qiso khabar ay tahay ayaa haddana waxyaabo maaragtay masaa'il fiqiya culimadu ay kala baxeen waxa kow ka ah waxyaabaha aynu kala baxayno caqliga inaanay u habboonayn waxyiga inuu ka hor yimaado caqligu waa inuu ka dambeeyaa una adeegaa waxyiga qaadashadiisa saa daraaddeed ayaa qofka mu'minka ahi markuu amar ilaahay xaggiisa ka yimaado ogoli inbuu leeyahy wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri aniguna sidaasaan idhi hadduu ilaahay iyo rasuulku yidhi waa caqlaaniya waa arrimaha ummado badani ay ku halaagsameen weeye ilaahay iyo rasuulkaa yidhi ma ag iman karta anna waxaan idhi a'immadii waaweynaa mid waliba wuxuu leeyahay qowlkaygu hadduu khilaafo ka rasuulka halkaa iska dhiga qowlkayga waa tarbiyada fadliga ummaddani ay leedahay ayaynu arkaynaa reer banu israa'iil sidanuu inoogu sheegay suuradda aakhirkeedana wuxuu ammaanay ilaahay mu'miniintii آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية وحكترت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلهي يوم قال هو كان سنة إله قريبا نكو كان سنة مركا يجو تباتي جنيه شافا شرقا مله إذن مركا ماشى كم وقنا يا وحوي وأتكانا يسأنا إسلا كان قادم وي ومضى النوع عاصة هي إيرينكو ما أنت التعايش بين الأديان والمصاحبة بين الأديان بالله وضع السوق قلنا يا ديمها هي الدكود دين يهودي قصنا رد الدير تنحن بارسن عناتكن قفك مسلم كسمعنا ووضعنا على الإسلام كان قاضي كراه يسقوا متى تناسلية كراعون بالتناسلية إمام أحمد رحمه الله مسألة الفقه وكلا صبح وحوي أن البقرة تذبح ولا تنحر وحجر النحر يذبحي fiqigeena marka la eego xoolaha qaar naxri baa lagu sameeyaa waa la dhuundhabaa dhuundhow baa la idhaahdaa waa keekaas waa geela xaggaa hoosaa laga dhuundhabaa sidaa looga taagaa dhag halkaasaa guriga laga jaraa dhiigguna halkaasuu sida ugu dhib yar ka bixi karaa lo-da iyo adhigana waa la gowracaa ama waa la qowracaa qaaf iyo ga-kaa doonaysa ka dhow dadka labada waa ka maqalaaye waa xaggan hore ayaa laga jaraa marka lo-du nooca xaggan laga gowracayo maaha in xaggan laga gowracayo ayadda waa ka faa'iideynaa buuli inkastay qiso tahay imaamu maalikna waxa uu ka faa'iidaystay jawaazu bayci salam iibka la yidhaahdo amaahda wax lagu sii kala iibsada sifo wax lagu kala iibsada iyo tilmaamo heshiiska lagu qoraya inuu ansax yahay axaadiistu way sheegtay aayadaha daliilka waa uu ka mid yahay buu leeyahay oo sacan waa la sifeeyey dee markay qofka iibsanayaan ama u diranayaan sifooyinkaa loo sheegaya nootaayada lagu qoraya waa sacdaadiisu sidaa tahay midabkiisu sidaa yahay layligiisu sidaa yahay saasaa lagu helaya marka haddaad waxaaga saa u sifayso waad ku iibsan karta waxaynu ka arkaynaa musiibada uu leeyahay madaxadaygu iyo inuu wax sii adkeeyo laa tas'aluu can ashyaa ilaahayna ummaddan wuu uga digay inay had iyo jeer su-aalaha madaxadaygaa soo celceliyaan xun bay sii adkaynaysa waxa ku filaa sac markii la yidhi ku yar iyo ku weyn iyo ku midable iyo ku midka u horeeyaa ku filaa shadaduu fashudida calayhim walan yushaada diina axadun ilaa halaba diintu sideedunbaa ilaahay looga amar qaadanaya layskuma adkeeyo warwareegga waa laga ilaalinaya waxaynu ka faa'iidaysanay nusuusta daahirkun in la raacayo iyagu daahirkii may raacina way falsafadeeyeen marka waxaa yeel sidiisunbaa loo yeelaya daahirka lagama duwayo waxyaabaynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid a amarku fawr buu keenaa waa masale usuuliya haddii wax lagu amro miyaad iska warwareegi kartaa mise waa inaad horey kaga tallaabsato waxaa yeel waxaa ka dhalanaya natiijadu ay tahay inaad hore ugu dhaqaaqdo sidaa daraaddeed baad ajri weyn yeelanaysaa haddaad horey ka fuliso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey camalada maxaa ugu fadli badan muxuu yihi asalaatu liawali waqtiha amarka inaad xagga hore ka fuliso oo marka amarku uu taagan yahay aqiimu salaa waxay taagantahay marka waqtigu galo horey ka fuli xajkii inaad u degdegto cumradii cibaadooyinkii oo dhan mid waliba markuu kugu waajibo marka amarkii degdegaasaa ayaa ka soo baxaya qofkii u degdegayna waa maajuur masaa'ilka fiqiga laga qaadanaya waxa weeye annasku qabla alwuquuc waxbaa la nasakhi karaa intaanu weli dhaqan gelinba oo dee markii la amray intaan weli cidi dhaqan gelinba haddana la bedelay oo haddana la bedelay soo maaha
واسدي صدقدي ليلي نبي مركا لا كل ميسان صدقة قديمة سورة المجادلة سيدا كحسن markii dadkii ka baqday dib isu taageenna inta la fulin baa la nasakhayba ya ayuha alladina aamanu idha najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa xaga dama waxa ku sugan ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat wala nasakhayba marka naskhigu ahkaamtiisa waxa kamida iyadoo wali aanu la dhaqan galin in la nasakhi karo waxa halkan laga faa'iideysanaya xirmaanu miirath al-maqtul ala al-qatil qofku kii uu dilay inaanu dhaxlayn sharcigeena waa sidaa halkaasay ka soo bilaabantayo sharciga hore iyo keenu halkaa waa iskaga mid qofku hadduu qof dilo khatabaha u dilo oo yaan dambiba ka raacin waa la xidhay albaabka hadduu aabihii rasaasi kaga qaraxdo dee dadka kaluun baa dhaxli laakiin isagu ma dhaxlayo albaabka waa la iska xidho dee qaar ducafa ah oo u soo marmarsoonaya ama u soo dhukusaya ayaa dhici karta dilka qofkii uu dhaxlayo raagsanayo odhanaya kana ma gorgorba cimri dheer ah muxuu hore kugu dhaafi waayo ka qadimaya kaga tufaya waa iska badan kara waxa dilka la yiraahdo xaq darrada ahi inaanu qarsoomin sida qaalibka ama qarsooma dilka xaq darrada ahi deynagaaba aragnay qaar god loo qodo lagu malaasay Soomaaliya oo duqsiuna ag marmaray wabaynu soo joognayba islaan la mooriyay islaantii la mooriyay baa loo yaqaan nag laga dhigay haddana la soo helay mid kale aan xusuusnahay oo isagana intoo la jarjaray jawaan lagu xidho dabeedna ceel dheer oo shanshuba lagu rido lagu qafilay oo la soo helay waqtigii salafka waxa dhacay nin baa gabadh buu dilay dabeedna waaba la waayayba cishadii dambe ayaa muddo ka dambeysay oo lagaba samrayba ayaa aqalkiisa hortiisa waa kutubaha soo naqla fiqiga aqalkiisa hortiisa nin lagu dilay isagoo aqalka dhexdiisa neef iskaga qalanaya ayuu mididii oo dhig la banaanka ula soo baxay dee bilayskii un baa qabtay ninkii midida dhiiga la watay wax kale lama arag bacid kale ma joogtan ka midida sita mooyaan waa calaamad weyn haddii maxkamadii lagu geeyo warwareegayna adigu si uun bay noqoto waa lagu xukumay ninkii markaa wuxuu wariyay waxaan idin sheegayaa nin wax dilay waana laakiin runta aan idin sheegay kan maan dilin habartii hore aan dilay habartii aweydeen ilaahay baa isoo qabtay taasan hadaa midii dilaysaan habartii hore la waayay dilab kan laakiin raadiya cidii dishay dardaarankaas uu ninka tagay waana la dilay marka dilka waxa la ilaahay moodin inuu qarsoomayo daalun buu ka hilaac qisada waxa inoo si cad inoogu sheegaysa aakhiradiidka jawaabta qisadu shanta qisa ilaahay uu soo nooleeyay adduunyada dad dhintay bay markaa daliilu tahay ninkii markii lagu dhuftay wasladii intoo neefkii laga soo jaray baa lagu dhuftay kadibna uu hadlay shaqadiisii uu guto hebel baa ay dilay khalaas iska khuuriyay ama waa iska dhintay waxa halkan aynu ka faa'iideysanaynaa looda amaba xoolahaba midba wixii loogu talagalay in loo daayo ku wanaagsan yahay awrta ama geela rar baa loogu talagalay loodana waxa loogu talagalay qodaalka ayaa loogu talagalay dawata aynu aayada ka arkayno tuthiru al-ard wala tasqi al-harf wa dulaabki macna waa wadaantii u bajiidaysa lagu waraabinay sida daraadeed ayaa saxiix muslim waxa ku sugan xadiidkii abi hurayra warinay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha kamida ba asxaabta u sheekeeyo wuxuu yiri nimba sac waday oo raray sacbu raray awr ka dhigtay siciba dirgan waay markaasuu la hadlay ninkii intuu ku soo jeestay wuxuu yiri warda sida la ima abuurin qodaal bay la abuuray rar la ima abuurin iska sii socdo marka asxaabtii baa yaabo waxay yiraahdeen war ma sacba hadlay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri aniga iyo abubakar iyo umar waanu rumaysanahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo qisada waxay ku soo arooriyaan fadliga abubakar iyo umar haddana sheekadii buu sii wado wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam nin baa ari la joogayo marka yey ama bahal baa soo weeraro neef buu qaatay ninkii baa ka daba carro neefkii ka soo riday yeygii baa hadlay wuxuu yiri sidee baad yeeli doontaa yawm sabc maalinka bahalka ariga iyo bahalka aan cidiba u dhaxaynin maalinkaaba cidlaan ka heli markaasaa la is eegay kolkaasuu nabigu yiri aniga iyo abubakar iyo umar waa rumaysanahay idinku waxa doonaysaa yeelo
المهم waxaynu uga jeednaa shay walba wixii loo abuuray waxaan hadii loo isticmaalo waa cadibaan qaala allah ta'ala ilaahay baa wuxuu thumma inta kadib qasad qulubukum qalbiyadiina uu engegay min bacdi dalik inta waxa sameeyeen kadib fahiya qalbiyadiina kal hijaarati waa dhagaxaanto kale reer banu israa'iil aw ashadu qaswa bawaabay ka sii adag badan wayna min al hijaarati dhagaxaantu inay dabacsan yihiin baa la sheegay in min al hijaarati dhagaxaantii waxa kamida lama dhagax yatafajjaru minhu al anhaar wabiyadu ay ka soo butaacayaan وإن منها دغحانتي waxa kamida lama dhagax yashaqaq dildilaacaya fayakhruj minhu alma oo ay ka soo butaacayaan bilo abiyu وإن منها دغحانتي waxa kamida lama dhagax yahbidu soo dhaadhacaya ama soo daadegaya buurta qabqab ka soo oranaya min khashyati Allah cabsi ilaahay daraadeed wama Allahu bighafilin ilaahay ma moogo kama warla ama ta'maluna waxa sameeynaysan goodi weyn ba dhac yahan jabaad weyn reer banu israa'iil ilaahay baa inaga yaqaan subhanahu wa ta'ala waxyaabaha caanka ku yiina sifaadkooda quraanku tilmaamay waxa kamida qalbi angag qalbiga oo gaaray heer uu dhagaxba ka adag ijaaz marka luqawiya waa ka muuqanay sidoo ilaahay u sii sharxay dhagaxiibu marka rabbi amaanay noocyada dhagaxaanta mid ila biyaay mid sidoo jiricsan wabiyaal ka soo butaacaan iyo mid ila ka soo burqadaan iyo mid cabsida Allah in waayo ka soo wilanaya ama ka soo dhacaya buur weyn buuraha waaweyn marka joogto waxaad arkaysaa dhagaxaan waaweyn oo casayaalo soo daadegaya oo wax soo riday aanad garanayn waa cabsi Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubta yaqaanee qalbigoodii sidaas ku sharxay hanjabaada uu raaciyo wuxuu yiri reer banu israa'iil waxa sameeynaysan ilaahay kama war la hadii lagu raado cid awood leh ay ku tiraado waxaad falaysa waan ogahay maxaad u qaadanaysaa waan hanjabaad halkii u cuslayd weey waxaan ka yeelad arki doontaa weey ayaa daba taagan waxay leeyihiin aayaadka waxa ku sugan ijaaz cilmiya baa ku sugan waayo bariga hore waxa loogu haystay waxa ugu adag inuu dhagax yahay ama dhagaxuba uu yahay marka meel adag iyo guriyo iyo wax la isticmaalayo kay haboonta in la isticmaalo laakiin quraanku wuxuu sii cadeeyay dhagaxu inuu noqon karo mid jilicsan qolada markaas joolajiyada baaritaanka dhulka iyo xajaarta iyo dhagaxaanta sameeyana sidaas un bay akhiran arkeen quraanku uu sii sheegayo dhagaxiya waxaynu aragnay dhooba ah Sooma dhagaxa marka daqdiga lagu badiyo iyo culayska iyo heer kulka iyo xaraaradda muxuu noqdaa waxay yiraahdaan axjaartu way kala duwan oo dhagaxaantan sadxiga dhulka xaqiisa sare saaran boqolkiiba 1 ilaa 2 biyo ah marka mukawanaadkiisa iyo waxyaabuhu ka kooban yahay la eego dhagaxba dhagaxu ka sii hooseeyana uu ka biyo badan yahay axjaartuna biyaha waxay ka qaadataa baydan roobka biyaha roobka sida ciid u qaadato dhagaxaantuna way u qaataan meeliba meesha ay ka sii hooseysana way ka biyo badan yihiin dhagaxaanteedu waliba siyaabaha albaabadooda ay ku furmaana sida ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala waxa kamida burkaanayaasha bahalahan qaraxa Soomaaliya fulkaanaha waa albaabada iyo indhaha biyo ay ka soo burqanayaan waxyaabaha ilaahay uu ku furo ayay kamid yihiin lidalik bad mararka qaar kood arkaysa meel qaraxday oo dabkiina xagan ka butaacaya biyina xagan ka butaacaya oo labadiiba ilaahay isdhax wada subhanahu wa ta'ala marka hadaba heer kulkii loo badiyo dhagaxa isaga ee biyaha ay ka dhamaadaan border buu noqonaya ama budo sawirka maxaa laga sameeyaa de kulaylkan warshadan la gelinaya biyuhu bay ka saaraysaa dabadna buday noqonaysa daqiiqdaas oo kale wadiga ciidda ku walaaqaya iyo malqacad koodho marka doonaysa inaad dhagax karaysana biyuhu baad ku shubaysa dabadna dhagax buu iska noqonaya idan marka inuu noqon karo dhagaxii wax jilicsan sida aynu hadda ku arkayna ayuu quraanku sii sheegay insaanku tijaabada uu gaaray iyo awoodaha ilaahay uu siiyay kadibna jilaacaasaynu ku aragnay idan marka qalbigii bani aadamku waxa uu noqday dhagaxa jilcay mid isagu kaba si adagba law anzalna hada alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah absida ilaahay daraadeed ayay dhagaxaantu la dildilaacaan laakiin bani aadamka qalbigiisa waa ka waliba qalbiga yahuuda waxa marka natiijada ay noqotay ha aaminin naxariisna ka sugi qofka ilaahay ama ummadu kaga waramay qalbigoodu inuu halka gaarsiisan yahay ha ku talagalin inay ku naxariistaan
أما هرمرك جارسيان أما هلاك بدباديان يترت وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم